السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وائل السلام من ملك استرسولا جوكتان بخاصة مبدر هيروغادية والسلامي سلام كبعدي waxaan rabaa dhowr qodob inaan maanta ka hadlo. Waxaan rabaa Itoobiya Axmaara iyo Tigray xaaladooda inaan galo. Waxaan rabaa inaan ka hadlo kilalka iyo ninka kala madaxweynaha ka. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dawladnimo kuma ayna ranaynin oo kuma ayna soo barbaarin waana soo dhoolaan jiray away dadkan kada mas'uulka u ahaa culimadii caaqiliintii ugaasiyadii garaadiyadii suldaanadii xagay aadeen saddexda qodob baan rabaa inaan ka hadlo. waxaan rabaa inaan ku horeeyo Itoobiya waxaan rabaa barbardhig inaan ku sameeyo taariikhdoodana aan ka hadlo Itoobiya. Itoobiya waqtigii la inoo dhiibay gumaystayaashii reer Yurub ay nagu wareejiyeen si fiican horta ma la ii maqlaa hadalkaygu inuu meel cidlaa ku dhaco ma rabo si fiican haddii la ii maqlahaa ay dhaha wixii ay tamhayo wuu iska fasaxan yahay maanta waa maalinkii jinku u xidhnaay wixii ay tama waa fasaxan yahay qofka caytama ee meesha ka caytama akhlaaqdiisa iyo waxa uu yahay unbay caddaynaysaa waalidkiina waxbuu u dhimahayaa because qofka hadduu caytamo akhlaaq laguma soo korinin arrintaas waxay saamayn ku yeelanaysaa waalidka. Okay, si fiican haddaad ii maqashaan waxaan ku horreynayaa Itoobiya gumaystayaashii reer Yurub waqtiga ay Itoobiya inoo dhiibeen su-aasha inaan isweydiinna aan u baahannahay umul ma nihin ilowshadhow ama umul baa ma nihin yaa Itoobiyadii laynoo dhiibayay ahayd yaa xukumay Itoobiya Abasiiniya dadka la isku yidhaahdo ee laynoo dhiibay ee iska ka badbadalahayay yay ahaayeen waxay ahaayeen Axmaara iyo Tigray. qofka bini'aadamka isagoo dana gooni ah leh isagoo ujeedooyin leh isagoo oo wuxuu dadka u sheegay waayay Tigray iyo Itoobiya loo kala helinaya inuu ku wareegsto waa khalad. xaqiiqdana qof walba waa og yahay dadka waddanka u dhashayna waa og yahay dadku xoolo ma aha hadda ma ayna dhalanin taariikhdu waa mudan waa jira markhaati leh mar bay ahayd adduunyadu mugdi lagu halaabo mahadhooyin badanoo dadku ayda magansado taariikhdaynu soo maray 1954 markii laynagu wareejiyey gumaystayaashii reer Yurub aynu wareejiyeen Itoobiya ciddii laynagu wareejiyey ahayd Abasiiniya Axmaara iyo Tigray ma kala jecel lahay maya qof dana gooni ah leh isagu dan gooni ah leh inuu Itoobiya inooga dhigo wax suusuubi ah inuu ku soo wareegsto waa la kala jecel yahay inuu aamino kaalin siyaasadeed uu ka hadli kara in ay tahay oo uu qolo wax kaga sheegi karo kuna dhaliili karo qolana uu ku ammaani karo ma aha macnuhu waa ka weyn yahay dadku aqli buu leeyahay inta meesha joogta iyo inta kilalka joogta dadku waa ka aqgarasho badan yahay waana ka aqoon badan yahay gobolkeena ma taqaanaa taariikhdiisa waxa loo yaqaano Itoobiya gobolkeena waxaa looga yaqaanay qofka loo soo beddelay ee Axmaar ah ama Itoobiyaanka kale ah lacag kulaylo la yidhaahdaa la siin jiray waxaa la dhihi jiray gobolkii yacnaha saxaraha dhisaartiga ama dadkii reer baadiyaha baa loo yaqaanay cidda magacaa bixisay ee ahayd Axmaara. hal arrin aynu isla ogaano Axmaara waxay aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed inay leedahay Axmaara waxay aaminsan tahay oo ay leedahay faan bilaasha Axmaara afkay ka hadashaa Axmaara waxay aaminsan tahay inay aqoonyahanka Itoobiya tahay runta marka laga hadlo aqoonta way leedahay laakiin maalinka ay rag isqabtaan dawaatantada halkan way taagan tahay hana loo soo gurmado yaa islaanahay ayay dhahdaa Axmaara qofku marka uu ka shaqeeyo gobolkeena lacag dheeri ah 1200 meesha uu ku shaqeynayo marka uu 500 bir ama 400 bir ku shaqeynayo qofku Itoobiyada kale laga bilaabo magaalada Dirraba wixii ka shisheeya Soomaalida markii la gudbo Oromia la gaadhayo $200 baa la siin jiray lacagta kulaylaha la dhihi jiray qofka loo soo diro qof tacsiisa la dhigay oo dhinto ahaan jiray waxaas oo dhayaa sameeyay Axmaara
dad jaahiliin oo reer baadiyaha laynaga dhigahayay oo laynoo yaqaanaa haddana laynoo yaqaanaa maskaxda axmaara ay isticmaalaysana waa u hirgashay oo waynu dhegaysanay brofesorodoodii oo leh axmaaro haddaanu nahay Itoobiya annaga naloo sameeyay annaga iskale berbere waa magac axmaaro waqooyi galbeed annaga iskale iyo ku doodayo waynu dhegaysanay qofku ma aha inuu sida majnuunka inuu hadlo xoolaha sidiisa inuu hadlo wixii shalay ahaana inuu wax ka fahmi waayo qofku waxa uu ka sheegay iyo waxa uu aaminsan yahay waa inaad maskaxdaada kaashato waa inaad maskaxdaada record leedahay waa inaad kaydin karto axmaaro waa dadka fikirka aaminsan shalay markaynu canfarta isleynayna axmaara waxay leedahay argagixiso weeye argagixisaa kusoo duushay Soomaalidu waa argagixiso axmaara lahayd mar walba la taagan tahay waxay qarsanaysana maaha rag haddaad dakana leedihiin dil iyo qaan gaadha waa lagu digtaa maalinkii xagashu daacdo ina cumar daga gabaygiisii nafsigu waa geedka labadiisa hadhka geedka oo labadiisa gelina qoraxdu markay geestaa martana xagga kale waxaan ku maraa xagga markuu marana geestanu maraa saaka waxay taagan tahay ninkii yidhi waxaan dhuusa moodayay waxaarigu noqday axmaara afkeeda iyo waxa ay ka sheegaysay waxay ku noqotay godob laakiin way dee raggii ka faa'iidaysan lahaa jaariska raggii geemka ciyaari lahaa way ma joogo waddankeena waxaa laynooga yaqaanaa argagixiso waddankeena waxaa laynooga yaqaanaa al-shabaab 1991 yaa baarlamaanka Itoobiya mali zanaawi gobolka kilalka Soomaalida buu inoo bixiyay magarka kilalada la bixinayay axmaara baarlamaankeeda ayaa ka kacday waxa la yiri gobolkan Soomaalidu ay leedahay aad Soomaalida ku sheegayso ogaadeen baa la dhahaa ma hayna dan inoo sameynayaan laakiin maxaa laga cararayaa magaca Soomaaliyeed baa laga fogeynaya gobolka ogow dadka Soomaaliyeed waxaad ka maqlay Soomaalida Itoobiya Soomaalidu way maskax laadahay maskaxda ka jiran tahay siyaasadda ma yaqaanaan erayga ka soo baxaya afka ka soo baxaya waa eray siyaasadeed waa eray adiga wax ku yeelahaya waa eray adiga dadnimadaada iyo lahaanshaha dhul wax u dhimahaya Soomaali ma dhul bay ku kala lahayd maya Soomaali dhul baa ka dhaxeeyay gumaysiyaashii reer Yurub yaa markii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan la dagaalamay baa waxay go'aansadeen maadaama dadkan dad active ay yihiin geeska Afrika inay khatar ku yihiin wadan kasta oo Ingiriisku gumaystana saas uu kala qaybiyay waa la kala qaybiyay calaamad baa la kala sameeyay dadka Soomaaliyeed ma dhul bay kala lahayn maya maxaa u dhaxeeyay maya waxa la yiri Somaliland Puntland Ogaadenya Djibouti waxa la yiri NFD waxa la yiri koonfurta saasa la kala qaybiyay inaga oo loogu talagalay mustaqbalka dambe in aynu ku kala baabaano aynu isku baabaano dhul isku qabsana ama aan kala gogoano oo dad khatar ku ah geeska Afrika inaan noqonin waana faanto aqligaagu ku shaqeeyo innaga kaligeen ma aha tuutsiga dadka la yiraahdo kamid mise wadan baa lagu kala daray kurdishka dadka la yiraahdo kamid ah wadan kasta oo dad active oo ku noolaa oo dad khatar oo ka noolaa nimanka Taliban Pakistan Afghanistan la yiraahdo kamid ah oo mise wadan baa lagu kala diray ummad kasta oo dagaal gasho oo khatar inay yihiin oo active ay yihiin ay warkan gumaystayaashu gumaysigii reer Yurub baa inta loo fikiro ba waxa la dhihi jiray mustaqbalka si ayna khatar u noqonin is loo baabiyo dakarada gaaladu ma hadho waa ta kaliftay maanta inaynu lugta kula jiro Somaliland Puntland Galmudug Jubbaland NFD Ogaadenya Djibouti waa inaynu inta kala qabsano qorshe la inuu talagalay waa tahay because dadka Afrikaanku waa dad xoolo ah oo aan fikirin maskaxdoodu aan actifayn waxa ay man doonaan ka fikirin ma ayna garanay gumaystayaashii reer Yurub waxa ay sameeyeen iyo dulmiga ay nagu sameeyeen aynu ka gudubno innaga Ilaahayna sameeyay bini aadam inaga dhigay innaga waliba dad islaana aynu ka fikirno waxaan kale ma ayna garanay iyo gaala midkii dooniba ha ahaadeen waata maanta taagan yaa sabab u ah axmaaro iyo tigree waxaa nasiib daraa dad dana gooni ah leh ujeedooyin iyagu leh aqligoodu una dhaafsnayn bartaa hadda la taagan yahay oo aaminsan un inagu inaynu cadow isu nahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa rag isku qayb rag iskagama qaybo inta jigjiga joogta laba qaybood baan kala saarayaa qolo waa iska khasban tahay oo iyagu mushaharkooda ku xidhan nin waalan haddii uu ku taliyo inaad raacdo waxa la yiri dameer nin daba galay dambu mooday dameerku markuu socdo
culays markuu waxay qaado talaabadu qaadaba dhuusu qac ka siiya waxaasoo dhan iyo oxygen ka soo baxayso oo dhan ninka daba socdo bay ku dhacdaa dabeer nin daba galay dan buu mooday dadka jigjiga jooga ee media ka hadlahaya ee madax baan nahay leh ee sidii neef ari oo la qalahayo gaariga korkiisa saaran iyagu choice ma laha qolana waa qolada joogto oo xoolanimada iyo aqriga ilaahay geliyay iyo garasho xumida ilaahay geliyay waa midda keli ah ee fikirkooda uu noqday dadka keli ah inay ka fikiraan oo ku mashquulaan dadkan kala dhiban ee gumaysigu soo dilay أحمارو hadda waqtin xaadirka hadda la joogo yay taagan tahay fikirka iyada waxaan dhageystay cod laga duubay madaxweynaha Axmaarada wuxuu ka hadlay arrintan ka hadlayo Axmaaro markii xabad ay tagto inayna waxba ahayn oo ayna waxba iska celinin wuxuu sheegay oo kale qoomiyadii Itoobiya oo dhan inuu dagaal galiyay oo maanta aan Axmaaro gooni loo fiirsanaynin shalay markii horta waa inuu isla fahanaa hal dadka garashada aan saaxiibka u ahayn sideen cagjar oo kale aqriga ilaahay una siinin aqriga ka dhaadan ba waxay rabaan annaga inay noo sheegaan waxa muuqda Axmaaro iyo Tigray la taagan yihiin shalay ahaa Axmaaro Oromo Tigray waa la weeraray yaa weeraray Axmaaro weerartay dawladda Itoobiya Abiy Ahmed iyada ku awrkacsanaysi dawladda Itoobiya iyada dagaalka gelisay iyada maskax u isticmaashay waa hadalka biyo kama dhibcaanka ee runta dagaalka meesha ka socda yuu dhaxeeya Axmaaro iyo Tigray Itoobiya khatar lagu yahay kastoontii baa iga weynaatay Itoobiya waa in la difaaco ururka argagixisada waa in la difaaco annaga hadday argagixisada yihiin iyo hadday gaala yihiin sam Axmaaro iyo Tigray annaga isku mid bayno yihiin maanta iyo bariba adiga garashadaada iyo aqligaagu haddii ay ku siisay inaad annaga nooga dhigta Axmaarana inay awliye yihiin Tigrayna ay gaala yihiin labadaba waxaanu leenahay isku jaba saasana aanu taaganahay adduunka ilaahay uu ina keenay wuxuu inoo keenay inaynu ku noolaano adduunka waxa joogo dhanba mulkiyadiisa leena siiyay haddaynu bini aadam nahay aqli baa ilaahayna siiyay muxuu macno inoo sameeynaya qofku isagoo xor u dhashay adduunkan kada yimid muxuu yimid wuxuu yimid aqliga inuu isticmaalo maskaxda gaalada cadaanku waxay dhahaan baaritaan la sameeyay boqolkiiba 99 qofka Afrikaanku maskaxdiisa isoo isticmaalay buu godka la galaa waa lagu abuuray xubnaha lagu siiyay lafa loo yeelay jiid baa lagu sameeyay jiid kuwa quruxda la fikray hadii la soo reebilaa bini'aadamka ka waran ma socon lahaa maya jiid kale hadii laga dhigi lahaa ma socon lahaa maya wuu isku dumi lahaa awoodda iyo dheelitirka ilaahay una siiyay indhihi baa laynoo sameeyay sankii baa laynoo siiyay afkii timihii oo qurux laynooga dhigay qof mulkiyaysan oo xeeran oo timo meel laba ku lahayn fulxumidiisa say noqon lahaa dhurwaa un la soo daayay waa inuu macno inoo sameeyo maskaxda haddaada isticmaalin you know nothing aan soo dhaadhaco Tigray iyo Axmaaro dagaalku u dhaxeeya أنا عايش أروح لتاجين إثيوبيا دفاعنا إثيوبيا ما دفاعيس وحاط هاي أنا وانكو أجناي هذا ضدكم برنها يمنهم ما يصير له ذي هذا كم مدحوا هديري هي مدحنا قوية هذا مسك هذا وادونا كايد لهين مسك هذا نضو كايد بيراده هذا عروش هذا يفكر وهدين يسوقين كونه ويسوقين هذا تاريخ ذي شلي واحد كون اللي سادي هذا قرنين أنا وقرنينا شلي واحد لا تاجنيد shalay waxaad la taagnayd goondar adigoo doon saaran oo laba nin oo Axmaar u dhaxeeya boqorka Hayle Salaase ee boqorka bedeli doona ee Itoobiya noqon doona Axmaaradu ilaa madaxay ku buuxinayaan adigu intaas ku deeqda ilaa waas naqaana labadeenu ilmaadar waa intii istaqaana la yiri intaas ku dishay adigoo la taagan magarafoonka intaad qabsato كل إثيوبيا هلا ترتريو دولة سنترال إثيوبيا هلا سمية وحال تاجني شلي ما يسلو ذي مومول بات هذا مومول بات هاي اللي شدوا ذا وعاد شلي لا تاجني فكر كذا تاجنت هاي
وفكر كسر ما يسنح مارضة يوحي من سنتهي وفكر كتر شبه يا حمارضة وفكر كتر شبه يا حمارضة إنا تسقلتهين وفكر عروش هذا يافكا وإنا يسوافقين لكن دي بعتذكوا عيسته وحاوية ما أنت هذا الكارد هذه بري هذا الكارد هذا وايستقين إياه قفك والا مجنون كأه إلهي وقرآن كيسو كل شيء دنبق لهاي المركب مسكح ليس إلهي والو كا بانكو كاسو قادا يانو وانا اوغا هيا ادو waxaa tahayo caafimaadkaaga maskaxiyan inuu wax ka dhimeeyo anu waan ogahay inta aan ogeyn u sheeg laakiin yaa iskala dhibka noocaasa kuwina gumaysanaya oo noogu talagalay inaan horumar gaarin oo ku talagalay maalin walba mid xawayaana inay noo soo qabtaan oo ku talagalay mid walba maalin walba midna baabiin hayo canjeerada kaliya ka fikiraya inay noo soo qabtaan way qiimeeyaan waxa la arkaa qofku inuu rabbi khalaa wada laqyahay cabdi baynu shalay ogeyn cabdi baynu shalay ogeyn ugaasyada intuu kurka ka soo xidho jeen qaarinay sodayii iyo gabdhaha uu dhalay iyo gabdhihii ay dhaleen kufsan hayay ciidamada kubiyo booliska kufsada lahaa marjinaya ugaasyada iyo suldaanada waa gumaysiga shalay yaa keenay xmaar maantana oramo ogaada qofku gumaysi marka uu soo maro hadduu xukun qabto qofka kale waa ka xun yahay fikirka ila amina adiga oo la shalay taariikhda intii la noolaa laba jeer baa milal khataalo loo sameeyay dagaalkii Talyaaniga waqtiyadii la galay qoladii dhirgaahid baa u sameysay markii labaadna jigjiga loogu sameeyay waa taariikhda record qoran taariikhdu waa dhaxal ilmahaagu muxuu dhaxlayaa in cagjarow ilmahaagu wuxuu dhaxlayaa boqor meelada khayru awliya ah ilaahay soo diray oo adigu sida aadafkaaga kala hayda kuwii u shahiiday ee waligood waddanka u dagaalamaya islaamka ahaana ay ahaayeen daalimiin taariikhda maskaxdaadu haddayna hayna annaga hayna shalay bay ahayd adduunka waqti casri ah la joogo halba record weeye iyadoo video ana waan haynaa adigoo khudbad iyo shir ugu qaban hayna waan haynaa boqolkiiba 35 magaalada jigjiga waxaynu isla kharaynaa shaqaalaha ka shaqeeya inuu xmaaran yahay jigjigay badan oo jooga inaad daawanaysaan baan u malaynayaa kilalada budgetka maxaa loogu kala sameeyay qolo walba iyada dhaqaaleeda iskale axmaara gobolkeeda iyada iskale mutakal baa lagu leynayaa orama lagu leynayaa maxay u firdheen oo dhaqaalaha kilalada kale ka dooneen wixii idinku allahaydeen kilalka Itoobiya oo waliba xaqina idan haysanin oo la idinku tala galay baa waliba axmaara loo qaybinayaa oo axmaara mushaarinid qof walba oo mushaar la siinaya qasnaji waxa uu axmaar meel walba oo dhaqaalaha Itoobiya waxa fadhiya أحمر يا قبل كان فديا ما حق بيقولين مايا ولما ركتين عكسروا كالله يا مايا برلمان كإثيوبيا حقا كلنا إن تودي سيدات اللي دور غفن ولا ناي إن عكسروا كالله يا ما ركتين مايا دولة فدرال كشغالة عن كلنا إن تاوي شري وحنا جيسنا هي عبد الولي حسين قاسي يكوي روا وسير وهي اللي يجري وضح الله هي وحلاي أنا إثيوبيا كم من حرمنا نجمع مغنى وعنو كو خصمنا هنا نطلابة قادنا وحكستو إثيوبيا عدو كو والله هيست عبد الولي وحيري والله هيست أوبشن ما وراها فهرنتي because بري بالله عيرنا يا عروتي سبيل كيسوايا he don't have choice وايل ما يرى الله سوا علي لكن وحلا يا بناي dadka كل الكتشوجا تيو حميدو ذا أوكي أنا كسر أنا كل الكوي دمبينا يا هوشي سوي دارتاي أحمر وامد النوعة أحمر وامد اللي أنا قاعد سكين لي أنت إلهك سكيس تكرابي كدولن تكرابي صح سوقين قبله ذي أردن بكفصلين نك بكسر ديجان ويسررتين قبل كتكري وحيالي أردن يصدق السنة تي بي ألف سميري صردن ويسررتين ديال كاس يود حيا تكرارا ويسوق بسنة ودن كود أحمرين كدولن يود حيا أنا عكسروا بل كتشوا عبدو وحود حيا إثيوبيا سماها أغلى كوسي أبي دجال كوال الجريء ويلي را مسكين هو الجريء بوها حتى أنا كرسي يسيبه وبقايا أو كرسي قاعد دفاع وسلية أنا ما دجال كهلا كشوف حيله هذا أبي بقى ماشى يا مدحوين إنه رئيس الوزراء إنه أو كل ما يسوي عيدا كذا وجلسين ويصور بلان أنا واحد هذا سيستم كما دام أن كتر سنة هاي سيستم كالدولة نبو
Ethiopia haddii aynu ku dhex jirro xaq aan leenahay haddaan ka qaadanayno waxa qoomiyadu ay maraan marra waan ku khasbanahay systemka qiraya laakiin wiilasheena inagoo Ethiopia ka mid ahayn oo layna yaqaan inayna Ethiopia ahayn ninkii axmaarka ahaa ee kilalka axmaarada fadhiyay intuu soo istaagay inuu yiraahdo naloo soo gurmado meesha bugta iyo farta ay sug in badan inagoo halka joogno waxaan leeyahay in cagtar waa axmaar qaar badan oo idinka haytamin waa ogaadeen maxaa kalifay ninkii axmaarka ahaa ee kilalka axmaarada haystay cidda kale oo qayliyada ugu horeysa ee uu yiraahdo naloo soo gurmado kilalka Soomaalida iyo xildhibaan Mustafa Cagshar madaxweyne Mustafa inay dhahan maxaa kalifay because they knows orama iyo cidda kale gobolada kale oo dhan waa lagu leeyahay gobolkeena kaliya bay nabadgelyo ku haystaan maxaa kalifay nabadgelyadu which is good qof inala joogo in la dilaan uma baamisani laakiin maxaa kalifay inay yiraahdaan Mustafa Cagshar noo soo qayliyo isagana uu degdeg uga jawaabo because wuxuu aaminsan yahay waxaan hadda ka hadlayay isku qolayna yihiin bay ogyihiin isku siyaasadina yihiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia laga dhigi boqorka Ethiopia laga dhigi inta kaliya isaga deeqda madaxweyne marida ay haastis ma garanaysaa kilalka axmaarada iyo kilalka tigraagu dagaalku u dhaxeeya inagu laba qoomiyadood oo Ethiopia inaan u kala hirino maxaa wadan oo inagu jira waxba kulligood iyo inay wada socdeen leeynayeen aqli waa du shaqeynayo maskaxda bini'aadamku ay shaqeynayso inaan iska deyno oo naayar inagu taana ku toosno oo inuu aayar cadowgeena oo isu ururino maxaa diidahay waxba laakiin garashadeedii meeday waa ku deysay aan kaga soo laabta kilalka Ethiopia iyo kilalada iyo cidda islaynaysa aan soo gala kilalkeena Soomaalidu waxa ay markaa la kulanta taariikh kama reebto qofka hadaladiisa shalay wuxuu ku hadlaya maanta ma qiimayso bal idinka oo xaafadaysnayn idinka oo mashquulsanayn idinka oo aniga ay arag inaan shakhsi nabcahay la waxaan ka hadlay waa siyaasad waana dan inaga inoo wada taala sharad baa iga diyaara ina cagtar oo wax horumar ah ka hadlahaya ama dadka dantiisa ka hadlaya hadii aynu aragnay ina cagtar inagu in kasto ina keensanin meesha ma wuxuu aaminsan yahay inuu joogo inaga dhaxdeena inuu inaga mashquulo oo reebel baa sidana iyo urhebel baa sidana iyo dad baa sidana iyo dad baa argagixisa iyo dad baa heega ah iyo kasuuntii baa iga weynaatay inuu la fadhiyo masaaso aaminsan yahay waxa ka sii xun kuwa la nool dhulka iskale ugaasiyada isku tilmaamaya malaqyada isku tilmaamaya suldaanada isku sheegaya garaadiyada isku sheegaya ee hoos fadhiya maal walba sida neefada inta la soo shiriyo ninka aad aragtayna waalan calalada inuu dhigta taagan wuxuu sheegay run waxa la yiri hadal baa lagu cadeeyaa run ilkana rumay baa lagu cadeeyaa maalina dhimanaysaan baa idin soo mari dadka aad matashaan waxa aad ku hogaaminaysaan maalin idin kala xisaabtami baa idin soo mari dad aaminsantiin inta salaada tukataan kale inaad iska dhaqaaqaysaan maaha sidaa ummadda aad idinku leaderka u tihiin ugaasiyada aad u tihiin suldaanada aad u tihiin qodobkiinu way dambeynaya maalin idin kala xisaabtami way soo socota ninkii itusawan single day oo ina cagtar ama oo aan lefuuna wax ka sheegin maalinku inoo yimid wuxuu yiri heego inagii buu kala saaray heega yahay gobolka aan ku jirin bal hal ii sheego heego laba asbuuc bay jirtay ilaa ibaana markuu sii tagay sameeyay gobolka isagu ka soo jeedo 11 gobol aan ku jirin miyaa jiray yaa lagu riixayaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo madaxiisa yarka ah wuxuu aaminsan yahay taarget la isku ugaarsado dadka wax lagu yeelay inuu yahay heego waqti yar bay socotay wax walba waqti buu leeyahay heego waa soo afjarantay waa dhamaatay waa shaqeyn weyday kala qaybintii oo la fiiyay shilimageyntii iyo goday bay noqotay waa shaqeyn weyday sharciyada urka oo la fikriya iskale kuwa kale ee oo la faanahay leh meelaha yaayaca jaahiliinta ee oo la faan ka baxnay leh ee kolba adisaba tagahaya waxay garan waayeen oo garashadiisu siin weyday urur magac la siiyay
oo sharciyad loo siiyey in aan urur kale la siin karin oo constitutionka Ethiopia ka horjeeda international community iyo caalamka iyo informationada ka horjeeda garashadoodu way siin weyday waxay leeyihiin caaqilana waasiyaana garaadna garashaan leenahay siyaasiyiin banahay intaana way garan waayeen la yanka traagiska wata u gartay intaana way garan waayeen intay tagan bayna aan la faanaay sharciyadaha la siiyo waxa la yidhaahdo laf hal mid baan u dhaqanaa sharciyadana way haysataa urur kale la baxda dooraysan oo magacyo kale may samaystaan oo dhahan waa doorasho isku sharaxayna garashadoodii aqrigooda iyo tayadoodu way siin weyday kan aqoonyahan baan hayleeyahay madaxa yar in cagjara yaa waxa ka dambeeyo ogow dameer nin raacay dan buu mooday iyagu maadaama uu intii shilmada ah isagu uu ku fadhiyo waxaa la yidhi hawshaa sameeya waxa sameeya isaga u sheegaya nin waalan baa u talinaya iyagiina garashadoodii iyo aqrigoodii ma ayna ka shaqaysan oo waxaan suurtagal ma aynu magac kale la baahan haytaa ma ayna dhin ma urur la baxaan oo magac kale samaystaan doorashadaada way ka qayb geli lahayn ogow hana la asiixo urur baan nahay hadday dhihi lahayn oo xisbi la bixi lahayn laakiin oo la faanahay ujeedada ku jirta maxay tahay marka ururka oo la qolaa loo arkayo oo la fala baabiyo yaa ka dambeeyay maxaa magac kale loola bixi waa in cagjar muxuu aaminsanaa oo la finay tireer ku tahay إلا يشرحوا إن أركل للبح منا معلوم ما هنا أنا لفلا بابية هيد وابري صعب الوقت هو إثيوبيا ودون كوردن جيسك أفريقيا وإلهي بقوة اللي لها ودولة وقوة بدني كستوي حبان نقضي يا أنا في ميل والبكساري ويدي سياسة هنا وقت كاتي ملتري هنا وقت كاتي يا وجدوا waxay ahayd oo la baabiyo kayskina waa shaqeyn waayay aqliga garashada ilaahay ku siiyay hadii ay ku shaqeyn weydo Soomaali baan xaafadii isagu ka soo jeeday isaga oo arkaya anigu hadalka runtan ka sheegaa in cagjar 26 wasiir ee uu qaybiyay sideed gobol waxa uu minority uga dhigay oo isaga xaafadoodu ka soo jeedo xaafadooda ka simida buu wuxuu arkayay inay majority ka noqonayso si ayna u noqon xaafadda dhaba minority ka dhig buu yiri aqliga iyo garashada ilaahay siiyay iyo sida ilaahay u sameeyay inta kale ka cilmi qaado ya inta kale ka cilmi qaado oo ay reerkooda ay intuu ay isku urursado oo waxooda siiyo oo ay mubadho madaxweyne aan diina yaa diidanaa ma nibaa diidanaa maya ma qabiil baa loo riixay maya inside ku ka bukay inside ka ya oo waxa kugu jira caloosha kugu jira laba nin oo walaala u fiirsada hadalka taariikhdana dib u raaca ayaan la ka dhaxla hadalka hadaydan ogeyn laba nin oo walaala ninka cuqdada qaba ee xiqdiga qaba horumar ma gaaro mara tarmo taariikhda dib ugu raacda ninka nasteexa qaaloshiisu xaadan tahay ninka ilaahay baa bulaariya ina cagtarin sayr ku buka balaaya ku jirta balaayo dadkii xaafadii isagu uu ka sii tirsana marka la si kala saaray reekana wuxuu ku dagaalgaliyay reebel baa inoo jeedo reebel baa dagaal inagula jiro kursigeena loo socdaa kliban ayaan inii soo diray waa yaabay wuxuu leeyahay adeer wallaahi oo billaahi oo tallaahi inayna soconaynin haddaad aaminsan tahay reebel in la gumeeyo waxaa naagaha laga dalaaqay reebel keliya jira ilay baa sidaa yeelay haddii aad aaminsan tahay inuu soo laabanayo wallaahi xabad baa dhici laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ilaa nafan kugu olin lama qabta xabadiya ka dhici reebel ifaan anigu afka ku dhufan maaye waa waxa uu leeyahay ninku waa waxa ina cagtaru dadka ku dagaalgeliyay waa waxa uu la taagnaa ee lahaa reebel haddaan sidaa u galay maxaa idinka maqan nin walaalkii doorsaday ilaah darajo siin waaye dilaal iyo malaal wuxuba waa carabta daynkeeda dibnihiina un baan galay way dudubiseen ama cirka gal ama dhulka mataacun qaliin weeye intaad meesha joogto haddii adiga aad aaminsan tahay in lagu gumaystay oo awal lagu gumaysan jiray aniga oo ogeyn gumaysi lagu geeyay haddii aad aaminsan tahay xaafadda marka la sii kala saara adiga xaafadiina in wax loo dhimi jiray waxba isbedel ma yeelanayo adigu sidaad aaminsan tahay sidaa baad ahaanaysaa
waxba lagama qaban kara dee because dad kale oo baarashuud intuu ku soo dego waddanka imanayana ma jiro xaafaduhuna meeshan bay wada deganaanayaan dadkana la kala qaadi mahayo adiguna sidaa un balaayada kugu jirto kugu jiri waxba lagama qaban karo waxa laga qaban kara ma jiro laakiin waxa ku fiican nin baabari taariikhaha yaqaanay baa reerkooda show dad aad dadka u laayo ahaa markaasuu wuxuu yidhi gun waan colownay reerkii unbaa uun maalin walba nin meel marahayaa la dhihi reebel baa ag maray oo dili gaadhay wuxuu yidhi gun waan colownay gaalna waan colownay gobna waan colownay reebel baan colownay oo gob weeye buu yidhi ninku isaga waxaaba laga yeedhi ninka uu colaadda u qabo xabad inuu shafka u dhufto waa dhaqan gobannimuu yidhi intuu u loogo 24 saac ninku inuu wax tabto oo ceecdahayo oo dadka caloosha ka bukana waa cudur buu yidhi taana waxba lagama qaban karo waa dhaqan gonnimuu yidhi kaalana waan colownay reebel baan colownay indhaha meesha kugu saaraan sooriya la'aanba xabad bay kugu dhufan buu yidhi 24 saac inaad wax tabato ood bukto ood caloosha un ka guuxdo adiga iyo dadnimadaada iyo noloshaada dambe iyo mustaqbalkaaga iyo ilmahaaga iyo jiilkaaga waa arrin saameyn ku yeelanaysa weeye waxba ha bukinin lacag jarow dadkan aad kala saarayso meesha bay deganaanayaan dadkan aad kala saaraysana adigu shalay baa timid ee axmaaradaada canjeeradeedii unbaa ku hurane reer dhagax buur iyo nogob iyo erar iyo qoraxay sidaa unbay tolo ahaanayaan weligoodna kala saari maysid inkastoo haddii la waayo dad waxaan kala socda u istaaga saamayn aan aaminsanahay inay ku yeelanaysa reeraha dhexdooda arrintaasuna ayna dan u ahayn dadka wada dhashay dadka ma la dhammayn karaa maya maalmoon baad yar ororti hebel xidh hebel qabo hebel baynacaay magarfoonka ku dheg afka u dhowee bidaar xu soo dhig waa maalmo ma haysaa daynulcaabidiinkii tunisiya ma haysaa qadaafi ma haysaa sadaam xuseen ma haysaa xusni mubaarak ma haysaa 40 sano 50 sano bay waddanka xukumahayeen laakiin adiga ilaahay waxaa lagu mahadiyay waxa aad la joogtay Itoobiya inuu yahay 4 sanana ayna dhaafin ba xukunkeedu kabaqaad kasta oo noqoto jaajuus kasta oo noqoto waxaad ku mashquulshay waa argagixiso TPLF ururada taageerahaya hal su'aal waa inaan isweydiino أنا عكتر وتشوش بعض واحد تكى تيبي لما كنت شوكت حالنا وده شوكتين قبره هذا تشوشها أنا لفنا حبت بيلي دعيسي قفكم مركب أولين هي لبن المركب أجر سوي مادان ولا دقيست أجرت هذا قفكي قرت يسمى مركب دور مع الموضوع رياء ومحكمة هالنقطة أم حرب بكتبها هالنقطة قفكم رنت شيء يقفك كل هذا الكيس أصدقائنا أدو تشاتشوس نقف كم شيء كتير جحسنا كم شيء كتير بكوس أدا كل شيء ما لك هذا تبع تشاتشوس هذا هذا تشاتشوس بس يدو تاي تشاتشوس بس يدو تاي ولا الكيف على الدليل ما لك عندو بالله ضيّد وشام بقول أكون أوريدو قاعد يا أيدنتين 6 مليون يا بدنا بدحوينا ونقولنا يا تريبان دي يعني دي وقر ما عاد عدينين والله يرينا كوتشوجين وسوقينا نبغى وحلا شيء ويل يرى ميل شو تجي مركز سوق قصر ودعي وتركي قصر مركز سالي ومحد قصر سويلي عرويل كاير كايا وتقوم قصر نفق بظهروها ننكي one single day أو أنا أكثر أو إنك دحدنا إنك هذلين أو إنك مشغولين أو أنا لف إنك وحرق الشيء عدو كري ولا ما ديب النقطة عدو كري ولا وحول النقطة محي إبراهيم عدو كري ولا وحوار كي أوركي دجالة ما يصدم كسيدنا دجالة ما هي وحكوك اللي فين ويراه هذا وارجع يحسه
oo dadkii dhintay oo dhan ee jihaadka ku dhintay ee Itoobiya la dagaalamay oo dhan way khaldanaayeen oo jaajuusin baahan in Cagjar uu yiraahdo maxaa sabab u ahaa waxa sabab u ahaa kaliya oo aan naciibkeeda iyo maaday oo warka xaafadaha kamida oo inta kaliya period hada wax kale kuma kalifin ogaada ahmaara inuu amaano oo ahmaara u gala maxaa ku kalifay nac ku jira baa ku kalifay waad u dhiman hadii alla idin adiga bay ku aaba ku dhihi wax adiga kugu jira waxba laga ma qaban karo laakiin de waxa la yidin magaalo dudayo muxuu ahaa fidha Sacuudiyada miyo ah wax adiga ku khuseeya wax kula factirsan doona waxba laga qaban karin wax noloshaada dambe saameyn ku yeelan doona adiga iyo inta kula raacday laakiin waxa la yaabanahay inta huubada ee iska ag fadhida dad ku damiir darana qof bina aadam oo mustaqbalka iyo waxa ay noqon doonto ka fikiraya ma jira miya qof bina aadam oo Ilaahay ka cabsanaya ma jira miya qof bina aadam oo aqligiisa la yasahay ee qofka iska daba socdo sida boorsada xumaanta ku raacayo waxaanu nama anficay daa yiraahdo ma la waay taas dhibaato kala ila Cagjarow adiga inta kugu wareegsan adar geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa ilmaadeerna ama isxaman haye ama isxabaalaha la yiri taariikh baa hadaysa adigu taariikhna danka bariida waxa kugu jira ka tan weyn laakiin kuwa la joogow war waxa sameeynaysan meel hawaayina nin magaalo u dodaysiga yar aad baad ma santahay ninkaas ay saxay Maxamed Axmed waxaan arkay anu mar walba waxaan taagnahay ninku hadduu nin raga yahay kartidiisa iyo codkiisa iyo afkaartiisa waxa la yiri ama waa la muuqdaa lagu muuna leeyahay ama waa madasha lama tago heestiis dirgo maxay ahayd ama waa la maqayahay oo meesha lama tago oo madasha lama tago ninku haddii uu xil qabto waa inuu muuqdo waxaan la yaabay oo maskaxdayda ka dhawaajisay ina Cagjar wuxuu yiri waa argagaxis waa la reeraysan yahay ina qaasin ninkii loo oran jiray ee la lahaa waxa loo dhibay hoggaanka nabadgelyada ee layna lahaa waa nin fiican oo layna lahaa waa aqoon oo waxaan arkay sidii bamkii Ruushimeen ugu qarxay ina qaasin oo ina Cagjar codkiisa ku hadlay ina qaasin oo ku dhawaaqay arrin qabiilaysan wuxuu yiri ayaga oo dadku qabiilaysan inay ku dhuuntaan meel ma aha ciidanku ma aha ciidan qabiil ciidanku waa ciidan dawladeed ciidanku oo talaaba in aanu qaadayno oo aananina weydiinaynin ninna aana kala tashanaynin talaabada aan qaadanayno nin qabiilaysanna aanan dhageysanaynin oo argagixisada lala dagaalami waa afkii ina Cagjar waa afkii ina Cagjar ina la hortaagnaa waa ninkiina qaasin ahaa la lahaa aqoonyahan weey reerkii xagee u baxsanayaa dhibaata ina haysatay ciidanka lama diidana ciidan dawladeed inay yihiin shalay markii lagu lahaa argagixiso canfarta loo geenayay ahmaari iyo kulli isugu wada tagaysay Itoobiya ciidan dawladeed ma ahan miya canfarba weydiiday ciidan dawladeed ma ahan miya kuma dhiiran kartaan canfarta yarta ee meesha degan halka malyana waxa ay ku dhiiratay iyo kartida ay muujisay kuma dhiiran kartaan wiilashiina inaad badbaadisaan kuma dhiiran kartaan waxa inaad diidaan kuma dhiiran kartaan wuxuu inoo sheegayaa in Cagjar oo inta la joogtay ee xaabada ana inoo sheegayaan ee ag fadhida Itoobiya inay walaalahan tahay ahmaara inay qoladeeni tahay ahmaara wiilasheenu inay ku dhintaan gobolkooda ay difaacaan inay waajib tahay inta inoo sheegayaan inta Soomaa markaas iyaga oo xoola ah oo aan wax la qaato lahayn intay soo istaagan media waxay leeyihiin Itoobiya ka mid tahay nidaamka difaacano shamayo xoolo watay ما تكلم أنا حمار دفاعنا أو أبي بالله الصعدة ده يستوى بارم لايم كوينتا ما شيء كرتان مش شيء كرتان دي
يا ما دي كرتان تانا انت كوغو قدبو عيدنك waa la qaaday xogtaan hayo waxa la xaqiijiyo konton bas inay gudbeen il dhowr iyo 20 gaari oo 20 gaari oo qabaala inay gudbeen gursum degmada nin naga soo wacay oo joogo goob jooga oo markaa tirinaya live ugu jiray wuxuu sheegay konton gaari inay gudbeen tirada ciidankaas ma cadda koreesha boqol meelaha facebookida waan ku arkaya kun waan ku arkaya laba kuwan maqlaaya shan kuwan maqlaaya kuma dambaab karaano waa gudbeen iyagoo meelaha ku sawirana waan arkay arrinta kale ee aan iloobi waxa la doqon halka ugu daran bay loodaay madaxda kilalka dawladnimo iyo meel ay martay warigood yaalo dadarka ma taariikhda inta ku nool miyad artay ciidan ninkii madaxda u ahaa ee lahaa ana xukuumayntu hor fadhiisto ayru isku sawirayo sidina fadhiya isagina fadhiista askariga taagay miyad artay wariga nidaamka dawliga ay ka mamnuuc tahay ma aragtay wariga ina agjar odna fadhiya moodo yaxaabadiisi oo fadhido oo aad moodo aan riyo حتى النظام كدوري ما يقنن عيدان كاس waa gudbay wiilasha waana ka dhafoorkooda moraalkooda wiilal yar yar oo caruura intii la kasban karay rag waaweyn kuma jiro nin madaxa oo ciidanka hogaami la yiri mooyaane laakiin wiilasha yar ka waa teenage 21 22 bay ugu yaadadooda ugu weyn wiilasha arkay waana niman aad garanayso oo moraal haynin aakhara oo niman loo wado يا تانا كا غدبو waxaan soo dhaadhacayaa meesha ugu daran dawlad kuma ayna raaynin dhaqan baynu lahaan jiray ogaasiyo iyo suldaano iyo garaadiyo iyo waxba ayna xukumi jiray xagee aadeen talow culimadan xagee aadeen waxaad ogaanaya wixii ka dhacay Soomaaliya meel ka dhacay ma arag culimadan ku horeynaya culimada ugu waaweyn dalkeena hadda waa Sheekh Umar iyo ninka leeyahay Shibili waynu aragnay gobolada Soomaaliya iyo taako furin taakula fidinaya iyo lacag ururinaya balweyne iyo tagaya waqooyi iyo tagaya Boosaaso iyo tagaya Muqdisho iyo tagaya waynu aragnay dhibaatada jirta waxa weeye culimada kumada ama absame kismaayo xitaa kuma aanan maqal ogaadaya wixii ka dhacay meel ka dhacay Soomaaliya ma jiro iyagoo ka hadlaaya mayna arag iyagoo daaq urunaya mayna arag maanta wax yar haduu dhacanayo culimada Soomaaliyeed la leeyahay oo boorsa lacag la ordahay aad arkaysaa bal waxaad sheegtaan culimada Soomaaliyeed Shibili iyo ninka la yiraahdo Umalow arigoo idin xurmaynayo culimadanadi aatiin waqtiyada xurmaad ku leedihiin ma waxaa jirta diin idin oranaysa gobolka aad u dhalateen kama hadli kartaan kuwa kale ee Soomaalida waad ka hadli kartaan bal iga jawaaba mar walba Sheekh Umar oo media haysto oo ka hadlaya wixii maadaan arkaa wadaad yar haduu meel ka dhaco wax yar haduu meel ka dhaco isagoo oo ka hadlayaan arkaa ma arag ogaadaya isagoo ka hadlaya warigay magaalada Wareer buu ku dhashay Sheekh Umar dhabka ugu badan 74 qof baa wandhay lagu dilay wariga isagoo ka hadlayana ma arag wax diin oo oranaysa ka hadlin gobolka u dhalatay baa jirta mise diinta islaamku wadanka aad ku nooshahay iyo dadka aad la nooshahay islaamka iyo wixii dadka islaamka agagaarkiisa ka dhaca ee dulmi ku ah ama wixii dadkaas diinta islaamku ay ka qabto baa la idin diray bal iga jawaaba dhibaato waa maalin la idin kula xisaabtami doono haddii la idin diray Soomaaliya kaliya oo la idin yiri xagga ka hadla oo aan dhulka kale ee Soomaalida kale degantahay iyo dhulka aad ku dhalateen ee dadka islaamka lagu dulmiyayo iyo waxa ka dhacaya iyo diintu waxay ka aaminsan tahay aydan ka hadlaynin maanta ciidan baa la qaadaya waxmaare iyo tikreer lagu kala difaacaya waad ka hadli kartaan kama hadlays waxa weeye waxaan u arkay la jiifiyaala banaan waad cabsanaysaan miya Itoobiya waad ka cabsanaysaan miya waxaan u fahmay waxaad ku dhaqmaysaan waa cabsi ku salaysan waa diin ku salaysan cabsi oo qolada aad ka cabsanaysaan aydan ka hadlaynin oo xaq aydan sheegaynin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtii
حقا كما أين اللي حنشر ميل كستو كدعو هدي وحول بوضع هاي علماء انت أصلا لا وحاجر نمر واسي سلطامي يا جرادي إيو أن اسكو شيء هاي أنا بحيي هذا أنا بحيي أنا ويكم أنا أكتر شرف في ذي المطالو أنا أكتر شرف في ذي المطالو وأريدين شيء وانقض بين أيام haddii aan idinku khaldanahay xaal iyo xumin baan ka bixinayaa waxaan sheegay hadduu daw yahayna dadka Soomaaliyeed ee gobolka u dhashay ila arkeen kuwa ugaasida aad u tihiin iyo garaadyada ay idin sugahayay ilaa ila kiin arkeen ujeedadaydu waa inta dad baa ilaahay mas'uul idin ka dhigay dad baa idin daba galaya ulul azmi dadka leaderka laba qof haday isu yimaado waa diiniyan inuu qof hogaamiyo suldaamo iyo garaadyo inaad noqotaan waa daw iyo malaaqiyo laakiin xagee dadkii idinku dambeysay aad waxa u ahaydeen xagee idinku dambeysay dadka saddex nooc baa aqligooda loo qaybiyaa qolo waa la hogaamiyaa qolo waa miidhalo iyaguna hogaanka ogol yihiin qolona waa leader yaa dadkan kada jahaynaya yaa xumaanta u sheegahaya yaa dantooda ka hadlahaya yaa matalahaya yay sugahayaan bal ii sheega ma ka jawaabi kartaan maalin walba mid waalan oo dhaka diiran iyo mid waalan oo calool weyn intuu idin yimaado magarafoonka waxa aad kaga hadli jirteen cabdi inay markuu joogeen waynu isla ogeyn maantana waynu aragnaa wiilashiina oo la soo ururiyay oo la leeyahay axmaara ku difaaca axmaara dabaqlay oo axmaara iyo tigree u kala hiiliya baad intaad soo istaagteen yaad bartanka u fadhidaan garaad kulmiyaan ka gartay raggii hadda kulli isaa ka fadhiyay yaad bartanka u fadhidaan oo ay wiilashiini yaad sadaqaynaysaan miyaa laga qaban karaa maya lagama qaban karo dadnimada ilaahay baa bixiya maalin aqligiina iyo garashadiina iyo xilka aad dadka u haysaan ee suldaannimo iyo ugaasnimo iyo liidernimada la idin kula xisaabtami doono baa iman doonta hadday kuwan aad u tihiin idin la xisaabtami waayeen oo iska kiin qaban waayeen maalin la idin kula xisaabtami oo aakhiro la idin kula xisaabtami baa jirta ma ka waraysaa aqligaaga garashadaada xooggaaga maskaxdaada muruqaaga iyo maalkaaga in lagu weydiin qiyaamada xageed ku bixisay aqli baanu ku siinay xageed ku bixisay yaad ku bixisay walaag baad ku bixisay muxumaan baad ku bixisay garashadii aanu ku siinay aqligii ma ka waraysaa intaas oo culiyaan inay joogaan adduunka oo aan intaa mid qudh aan awoodin yay sugayaan kuwa doqomada yay sugayaan kuwa garashada ilaahay uu ka qaaday culiyaamadu yay sugayaan hooyooyinku yay sugayaan maatiduna yay sugayaan idinkeedii sugayaan Soomaa idinkuna dealer baatiin hadda ana afarta idinka saaraya waxa tiina dealer baatiin qolada maalin walba timaado shilma inta la idin siiyo kaale marxaati noqda wiilash baanu qaadinaa la yiraahdo mara kaale marxaati noqda la yiraahdo wiilashini baan qaadaynaa oo soo sadaqaynaynaa kaale marxaati ka noqda la yiraahdo sida naafare ah la idin soo fadhiisiyo leenka hore deedna camera la idin ka duubto Soomaali Maxamed aad baan idin salaamayaa ilaahay baa aqliga bixiya anigu aqli uma hayo reeraha garashana uma hayo hadday aqoon noqoto hadday sheekh noqoto caalima hadday suldaan noqoto hal qarab baan iloobay in cagsan mar walba wuxuu la taagan yahay waana la faadiidan barigii hore wuxuu lahaa waana la faadiidan doorashada Itoobiya hadda intadana wuxuu leeyahay waana la faadiidan Tigray lagu duulo mar walba halkaas taagan yahay أنا محل بهايسا Are you okay? أنا دكتورات نيو دكتور بعضو بانتا دكتورات هنقول مسك حنا والقبطين هذا إلهي بان كل داري أنا دكتورات is the way أو ضدك كتك أو والد هذا أجو أدبر دي السلام عليكم